xanuun kastoo aad qabto oo nafta gala shakiya murana kana baahi kastoo diineed oo aad qabto quraan baa kaa daweynaya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala laakiin wuxuu u baahan yahay quraanku inaynu fahmno isagaa ina sugaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay in badan tala saaran oo barino quraanka waxaad akhrisaa ambiyo badan oo ilaahay baryaysa oo ilaahay baryadii ka aqbalay oo wax laga aqbalay oo wax bini aadamka agtiisa fog uu ku yaan la aqbali karin nabi ilma dhali waayay oo gaboobay oo islaantiisii gabowday oo ilaahay isu cusboonaysiiyo ilma la siiyey mid badul liqday oo haddana kalluun sii liqay oo calool kalluun isagoo ku jira ilaahay baryay oo ilaahay ka soo saaray quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa markaa qofka ilaahay dhab ugu xidhanay dhab u barya in ilaahay badbaadinayo حتى نبي الله محمد با إله إليه واحد كبد بادي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليل حتى أنا ننقو كسرين با إله يلي مكري قال ذو وضان وابا حقو دادو دوان كاري لهيد باليدي وضو إيلان كاري لهيد والراسخون في العلم مركي إلهي كورمي وحال قلت المامي كو علم بيدك يا الراسخ آي يقولون إذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي قلبك يقصك نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتو شاقي قلوبت بن آدم كوين إلهي قعنتي سكو جيران أن يكذب إلهي بريء يسوى لا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إله قلبك بن آدم قديو قلبك يقطع عضاضة حق يده قدي وعلينا نقبه هي عدم التعرض إلى الفتنة